iyadoo ay Soomaaliya dhexda uga jirto dagaalka al-shabaab ayaa waxa muuqata ifafaalo muujinaya in maleeshiyada taabacsan Daacish ay maleegayaan inay si laban-laabaan dhibaatooyinka isugu jira weerarada dilka iyo dhaca hantiyeed ee ka dhanka ah shacabka Soomaaliyeed. Toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay weerarada ay maleeshiyada taabacsan Daacish ka geysanayaan magaalooyinka Muqdisho, Afgooye iyo inta u dhaxaysa. Xarumaha falanqeeya argagixisada waxay sheegeen inay Daacish sanadkan oo kaliya geysteen 10 weerar oo isugu jira khaarajin iyo qaraxyo ka dhana xubno ka tirsan booliiska, nabad sugidda iyo dad rayid ah oo ay ku jiraan nabadoono, ganacsato, aqoon-yahano iyo dadweyne kale. Weeraradan badankooda ayaa maleeshiyada taabacsan Daacish waxay ka duubeen filim, waxaana loo gudbiyey filimadaasi ururka Daacish ee Syria, kaasi oo ku soo daabacay warbaahintiisa rasmiga, taasi oo muujinaysa inuu ugu yaraan jiro xiriir dhinaca dacaayadda ah oo ka dhaxeeya Daacish iyo maleeshiyada taabacsan ee ku sugan Soomaaliya. Haddaba yaa hogaamiye maleeshiyada Daacish ee koonfurta Soomaaliya? maxayse tahay istiraatiijiyadoodu? Si aan jawaabo ugu helno waxaa galka baarista uu la sheekaystay xubno takhasus u leh xagjirnimada iyo saraakiisha dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya. jaamac xuseen xasan waa 36 jir ka tirsanaa maleeshiyada taabacsan Daacish ee ku sugan koonfurta Soomaaliya. bishii Abriil ee sanadkan ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka soo qabteen meel u dhow degmada Afgooye isagoo xilligaasi doonayay inuu miino u dhigo ciidamada amniga. jaamaca hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu ka tegay koonfurta Soomaaliya waxaana uu u safray waqooyi bari si uu ururkaasi ula jaan qaado, kadibna waxaa dib loogu soo celiyey koonfurta si uu weeraro u geysto. jaamac ayaa warbaahinta la hor keenay kadib markii ay soo qabteen ciidamada amnigu, waxaana uu sharaxay sidii uu hawlgelayay. miinada suubi aniga markii dib baashan suubi fiilada lacagteeda noo soo tuuray aday waxay ahayd $12 meelaha sameeyay ahayd boodboodki meeshan soo dhignay markii dib meeshan ka soo xariiray marka meel adiga oo ka tifiyadi karo oo banaan yaan geeyay baashi aan geeyay oo macnaha bateriga meelaska blaaska loo qaban karo marka ayuu loo qaban karo aniga marka xaafadeyda ay soo tagay waxaan soo qaaday tiray bateriga iyo macnaha xalida kaamirada soo qaaday kaamirada lagu keenay soo qaado waxaan joogay wadada dheer wax isku xirta carbiski iyo boodboodka u dhaxaysta ma geedan fidhi marka anoo meesha fidhi marka mooto socoto askari yaa meesha igu timid marka laba askari ay saaran tahay meesha marka maxay kaasay marka waxaan inay bawran soo qof musaafir aanana marka waxay dhaheen waan ka shakani marka waxay dhaheen aniga wax dhibna kuma geysanin waxaan ku soo baarina uga weydeen sidee ugu soo wadeen marka sidee leeyahay soo waday baashi saasa leeyahay helay. bishii Juulaay ee sanadkan ayaa maxkamadda militarigu ay jaamac xasan xuseen ku xukuntay xabsi daa'im. isla bishaasi Juulaay waxaa maxkamadda militariga la hor keenay xubno sare oo ka tirsan ururka Daacish garabkiisa Soomaaliya, waxaana xubnahaasi ka mid ahaa Mahad Maxamuud Cabdi oo ku magac dheer Abu Yaasiin oo lagu soo ogay inuu beeco siiyey hogaamiyaha Daacish Abubakar al-Baqdaadi, iyo Maxamuud Daawud Warsame Dr. Raage oo lagu eedeeyay inuu dhinaca maaliyadda u qaybsanaa Daacishda Soomaaliya, waxaana bishii xigtay lagu xukumay 15 sano oo xarig ah midkiiba. haatan waxaa la aaminsan yahay in weerarada ay geysanayaan maleeshiyada taabacsan Daacish iyo tiradooduba ay ku soo badanayaan magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda. weerarada Daacish waxay ahaayeen kuwo sii kordhayay, waxaana mararka qaarkood la isku qaldayay in weeraradaasi ay yihiin kuwo ay geysanayaan maleeshiyada al-shabaab iyo inay yihiin kuwo ay ka dambeeyaan Daacish. gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute waa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, mas'uulna waxa uu ka ahaa xukunka lagu riday xubnaha ka tirsanaa Daacish. sidii shabaabkoo kale in loo aqoonsado marka way ku dadaalaysaa Daacish waxyaabahay sameynaysa marka isay arintaas u gaarto waxaa kamid ah in mataqaana ay ficilada ay sameeyaan ay duubis ku sameeyaan ay duubaan si ay caalamka u sheegaan inay jiraan maxaa la yiraahdaa una helaan baad ganacsatada laga qaado iyo shakhsiyaadka ama shirkadaha. ficlan markii shirkadda ama ganacsiga iyo waxaas la weydiiyo baadne waxyaabahay weydiinayaan waxaa kamid ah halkeen kugu imaanaa maxaa intaad joogtaa wax kugu siinahay ay leeyihiin. taa marka Daacishta kama jawaabi karaan, waxay rabaan qaab maqoonis ah oo awood ah inay kudsaan awoodda waxyaabahay ku muujinayaan marka waxaa kamid ah inay TV duubaan si loo ogaado inay dhibaato keenaan. waxaad ogtahay maalmihii lasoo dhaafay in dhowr qofood oo ganacsato ah ama shirkada ka shaqeynaya la dilay. warbixinada subaxlaha ah ee la keenayo garsoorka waxaa lagu eedeynayaa in ay kooxda dishay ay tahay si gaar ah koox argagixisaha gaar ahaan Daacish inay dileen ayagoo raba in uu la xiriirinayo arrimo maaliyadeed la xiriirinayo. gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu ii sheegay in nolosha dhulka fog ee baadiyaha ah ay ku adkaatay maleeshiyada Daacish, taasina ay qayb ka tahay sababta ay ugu soo laabanayaan magaalooyinka waaweyn. waxaa kaloo uu sheegay in xubno badan oo ku biiray markii hore ururka Daacish inay ka tageen koonfurta Soomaaliya, haatanna qaarkood ay deegaanadoodii dib ugu soo laabteen.
sheekh ibraahim aadan nadaara waxa uu hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab waxa uu sheegay in ururka al-shabaab ay markii hore la dhacsanaayeen daacish ideolojiyo badanna aysan ku kala duwanayn balse ay dana kala geeyeen waxa uu sheegay in ururka al-shabaab uu si lama filaana go'aan uga soo baxay kaasi oo lagaga hortegaya ururka daacish waxaana uu intaasi ku daray in go'aanka al-shabaab ay ka soo saartay daacish uu ka koobnaa ilaa 95 bog ujeedkuna uu ahaa in daacish ay la diriraan dagaalkii al-shabaab ku qaaday daacishna uu keenay in xubno badan ay u baxsadaan dhinaca bariga kuwo kalena la laayo waxa uu sheegay sheekh ibraahim nadaara in baxsigaasi ka sokow istiraatiijiyo weyn ay ka leeyihiin ururka daacish magaalada muqdisho iyo agaarkeeda istiraatiijiyad weyn bay ka leeyihiin koonfurta bariga hadda daruuro iyo danbaa ku kalifaysa laakiin meesha ugu weyn oo waa in isla joogaan saasay tahay laakiin sida koonfurta ay isaga ugaarsanayaan oo loolanka iyo tartanka ooga dhexeeyo oogama dhexeeyo bariga iyo meesha shishe hadda ay isla joogaan marka muqdishada waxyaalaha kale u fududaynaya waxaa kamid ah dadka koonfurta ka tagay bariga aaday qofka xaaskiisa iyo caruurtiisa ee koonfurtan joogaan barigaasna aado waxaa laga yaabaa waxa ugu badan uu maqnaan karo sanad iyo bar ama 2 sano meesha u dambeysaba hadduu soo laabto uu fasax soo qaato waxaa laga yaabaa noqoshadiisa inay adkaato marka inay dhahaan baa laga yaabaa sida kuwa hore oo la qabto lasoo bandhigayba ay cadaynayeen inay xamar ka shaqaalaysiiyaan oo xamar uu ka shaqeeyo yaa laga yaabaa maadaama dhulalka shabaabka ay xukumayaan uusan ku noqon karin oo la yaqaano xaggana uu target ka yahay meesha keliya marka uu ku nasan karo ama uu ku gaban karona xamar keliya ay tahay waxyaalaha marka keenaya in ay ku firfircoonaadaan waa sidaas gaashaanle sare cabdi xasan xuseen cabdiyare waxa uu ahaa madaxii sirdoonka ee puntland waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn u darsay ururada xag jirka ee soomaaliya daacish hadda awoodeedu kolley waa urur jira oo shaqaynaya oo weli saaxada soomaaliya ka jira haddaan tan soomaaliya kaaga warramo khatartiisina weli way taagan tahay ma arko maaragtay isdhimid awoodeed oo hadda ku dhacday mar dhexdaasa dee xoogaa ururka waxaa ku dhacay gadaabis laakiin waxaa moodaa inuu soo kabtay oo dhaqaalaha dowtiro badan uu gudaha ka helay soomaaliya marka waxaan isleeyahay weli khatartiisa way taagan tahay howlgalladana dee howlgallo badan bay fuliyaan sidaad ka warhaysid koonfurta soomaaliya iyo bariga soomaaliya inta xaggey ka helaan dhaqaalaha 2 siyood bay dhaqaalaha ku helaan dhaqaalaha gudaha wadanka soomaaliyana dhaqaalay ka helaan banaankana waxbaa ugu imaan jiray ururweynaha daacish dhaqaalay ka heli jireen laakiin hadda waxaa moodaa in aad u xoogaystay dhaqaalihii ay gudaha soomaaliya ka heli jireen shirkadaha ganacsiga iyo maaragtay ganacsiga soomaaliya ka socda bay sida al-shabaab oo kale dhaqaalo tiro badan ka qaadaan oo baada dhaqaalahaasi aad buu u kordhay ilaa hadda xadna dhaqaalo tiro badan baa sheegaya in ururku soo galay cali nuur maxamed waa guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose oo ay hoos tagaan afgooye iyo ceelasha biyaha oo la aaminsan yahay inay ka mid yihiin meelaha ay ugu badan yihiin joogitaanka maleeshiyada daacish oo ilo xogogaal ah oo dhinaca amniga ay sheegeen inay gaadhayaan 10 iyagu waxay isku darayeen dilka iyo gubista muuqaalka oo markaa ay soo bandhigayeen si ka duwan sidii qolyihii hore ay u shaqaynayeen 1 2 agabka ay la yimaadeen oo masalan miinooyinka oo kaleeto waxay ahaayeen kuwo ka duwan kuwa ay shabaab ku dhigayeen kuwaasi waxa weeye kuwo la aasayo oo markaa rimud lagu qarxinayo kuwii miisaanku dee mar horeyba iska dhamaayeen oo ay ka baxeen dhulka inta badan laakiin kuwani waxay la yimaadeen inkastoo mar dambe qoladan kalena ay isticmaaleen shabaabku miinooyin sida sabanka oo kale la tuuri karo oo boodaya oo inta wadada dhinaceeda la geliyo yacni ku boodaya halka loo rabo marka waxyaabahaas sida ay u howlgalaanna way ka duwanayd agabkuna wuu ka duwanaa duubistan iyo iyagu 2 qof ka badan may diri jirin ama 3 ugu badnaan ismay raacraacaynin wax dhuumanaya oo haddana koox dhuumanaysa kasii dhuumanaya sidoodii bay u shaqaynayeen haddana iyaga kan bardhigis badnaa oo iyagu actionkii tilaabadii ay qaadaan ficilkii ay sameeyaanba way intay soo duubaan bay soo dhigayeen waa gartay marka awoodoodu intay la-eg tahay maxaan ku dhaha tiradooda maxaad ku qiyaasi lahayd dadka hadda ka jooga deegaanadan xamriga agaarkeeda waxaan is leeyahay horta tira ahaan dad badan maaha dee hawsha ay hayaan oo ah in uun wax la dilo lana cararo la dhunto si haddana wax kale loo dilo iyagu waa intaa yacni marka dhibku dee qof la dilay waa wax weyn weeyaan waa ficil weyn saameyn badan buuna leeyahay
laakiin cidda wax dishay way kooban tahay. marka tira ahaan ismalihi anugu hadda waxay xitaa gaarayaan 200 oo qof inta dhulkan ka joogta, laakiin waa dad farsamo iyo dhuumaalaysi iyo uun ku jira iyagu, laakiin number ahaan waa number aad u yar runtii. maxaa tartanoo ka dhexeeya daacish iyo shabaab? iyagu dilkan ma heshiisay ku yihiin oo waxba isma yeelaan dhexdooda, mise iyaga laftigooda tartan baa ka dhexeeya? tartan weliba waxaa ka dhexeeya aada u xoog badan runtii. way isdilaan. shabaabku ma ogola daacishtu inay ku dhex noolaadaan. marka markii hore anigii kulahaa koox dhuumanaysa ayay kasii dhuumanayaan. waxa weeyaan shabaabkiina way ka dhuumanayaan, shaqadanna way haystaan. dee wayna ciloobeen oo dad hadda ku heshiis ah, xitaa qandaraaska ay wada haystaan oo dilka dadka soomaalida ah xitaa iyagu heshiis kuma sii aha. marka iyaguna waa col, dadka soomaaliyeedna waa u wada cadin. waxaa haddaba dhowaan soo baxday in magaalada muqdisho lagu dilay mid ka mid a madaxda ururka daacish oo lagu magacaabo mahad macalin maxamuud, kuna magac dheeraa caanageel. mahad waxa uu qaabilsanaa dhinaca howlgallada, waxaana dad badan la yaab ku noqotay in hogaamiye darajo sare leh oo ka tirsan daacish uu u soo badheero inuu yimaado magaalada muqdisho. hay-adaha sirdoonku waxay aaminsan yihiin in dilkiisu uu dhacay 13 bishii Oktoobar, uuna ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Zone K oo ka tirsan degmada Hodan. hay-adaha amnigu waxay ku kala aragti duwan yihiin cidda dilkaasi geysatay. mas-uul ka shaqayn jiray arrimaha sirdoonka waxa uu ii sheegay inay caddaatay in dilkaasi ay geysteen xubno ka tirsan ururka daacish oo khilaaf uu kula dhexeeyey mahad caanageel. balse dhinaca kale waxaa jira xubno ka tirsan saraakiisha amniga oo ku kalsoon in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka al-shabaab. cabdi xasan xuseen cabdiyare waa madaxii hore ee sirdoonka Puntland, waxaana uu ka mid yahay dadka aaminsan in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka al-shabaab. sida xaqiiqda u dhow haruunow waxaa la sheegayaa in maaragtay xubintaasi ay dileen ururka maaragtay kale ay ku loolamaan Soomaaliya oo ururka al-shabaab ah. ayaa la sheegayaa ninkaasi dilkiisa inay runtii geysteen. markii ugu horeysana ma ahayn, labada urur si fiican bay isu ugaarsadaan. marka ugaarsigii ay al-shabaab ku haysay kooxda daacish oo ka mid ahaa. marka ninkaa waxaan sida xogta ku hayno nimankaasa gacanta lahaa geystay. sababtana miyaa la ogyahay? sababtu de waa caddahay. ma maqashay qore laba xero kuma heshiisa. nimankaani dagaalkoodu ka dhexeeya shabaab ilaa intii ay daacish ku dhawaaqday inay ka jirto. shabaab waxay qaaday campaign xoog badan oo ay ku taanayso, kuna xirxirayso, kuna ciribtirayso xubnaha u janjeersaday dhanka daacish ama fikradda daacish qaatay. muddayna soo taxneed ilaa 2015 ilaa hadda. sheekh ibraahim nadaara waxa uu leeyahay inkastoo khilaafu ka dhexeeya labada urur ee al-shabaab iyo daacish, haddana waxay isaga mid yihiin inay la dagaalamaan dowladda Soomaaliya, inkastoo taasi lafteedu aysan ka dhignayn inuu jiro heshiis ka dhexeeya labadooda. dabcan horta iyaga iyo shabaabku dowladda wiiqadeedii way ka siman yihiin, laakiin haddana midba midka kaleeto inuu meesha uga xoog badiyo oo saytarada iyo qabsashada maamulka Soomaaliya magaciisa lagu qabsado ayuu doonaya. ayagu marka nooc waxay u egyihiin hadda in cagta lagu hayo oo la cadaadinayo, oo shabaabku uu cadaadinayo oo u diidan yahay inay meesha ku ciriiriyaan ay soo galaan. laakiin in dowladda awoodeeda la weeqo ama lala diriro way ka siman yihiin. dagaalka ayaga ka dhexeeyana waa midba midka kale booska ka riixanaya, oo bariga hadda ma aha meel ay ku tarmi karaan siday koonfurtu ay ugu sahlan tahay in labada qoloba ay ku tarmi karaan. markii loo fiirsho xagga shacabka iyo juqraafi ahaan dhulka naftirkiisii, dhulka waa dhul hood ah oo buura leh oo meel lagu gabado ama lagu dhuunta leh, laakiin dadka jabhadaha ah ooma baahna keliya howdadka iyo buuraha iyo duur iyo ooma baahna keliya, waxay rabaan bulsho nidaam lahayn, fawda ka dhex jiro, oo isku hoggaan ahayn, oon isku aragti ahayn, midba midka kale uu kasoo horjeedo. bii'aadkaas iyo environmentgaas ay ku kori karaan oo ay ku tarmi karaan, oo qaybo kamid ahna bulshadu ay taageersan tahay, qayb kamid ahna ayna taageersanayn. laakiin bulsho dadkaanba ku cusub oon weligoodna arag oo aana soo dhawaysanaynin, waxna aan ku darsanaynin, inay ku dhex koraan way adkaaneen. marka waxay mar walba isugu dayaan inay koonfurta meel un kaga samaystaan. waa meesha keliya ku tarmi karaan. qoladaana waa meesha keliya ku dirirayso, ay u diidan tahay xataa iyaga iska daaya urur kaleeto inuu kasoo baxo, oo arrintaa daraaddeed ay ula dirireen xisbul islaam ay u baabi'iyeen.
inkastoo maleeshiyada taabacsan daacish ee soomaaliya uu hogaamiyo wadaadka lagu magacaabo cabdiqaadir muumin haddana waxaa sirdoonka soomaaliya ay aaminsan yihiin inuu jiro hogaamiye dhinaca howlgallada u qaabilsan daacish oo ku sugan koonfurta soomaaliya hogaamiyahaasi waxaa la sheegay inuu hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab uuna yahay ninka haatan isku dubarida howlgallada daacishta ee koonfurta soomaaliya saraakiil kala duwan oo ka tirsan amniga waxay u xaqiijiyeen galka baarista in ninkaasi lagu magacaabo xasan fanax galka baaristu waxaa kaloo ogaaday in ninkaasi hadda ka hor uu soo galay gacanta dowladda isagoo xilligaasi ku dooday inuu ka soo goostay ururka al-shabaab inkastoo dhab ahaan uu ka soo baxsaday weeraradii ururka al-shabaab ay ku qaadayeen maleeshiyada taabacsan daacish ee ku sugnaa koonfurta soomaaliya ninkaasi ayaa mas-uuliyiinta qaarkood ayay xaqiijiyeen in la geliye xabsi guri kadibna uu ka baxsaday xilliga uu baxsaday waa lagu kala fikra duwan yahay waxaanse laysku khilaafsanayn inuu soo galay gacanta dowladda kadibna uu baxsaday haddaba xasan fanax waa nin caynkee ah gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda ciidamada darajada koowaad ayaan weydiiyey waxa saraakiisha amnigu ay ka yaqaanaan ninkaasi xasan fanax markii ugu horreysa oo ka tirsanaay ahay horjooge ciidamada u qaabilsan shabaabka goboladan shabeellada hoose iyo jubbooyinka u qaabilsan oo horjooge firfircoon oo shabaab ka tirsan uu ahaa markii afkaartan ay soo gashay Soomaaliya 2015 wuxuu ahaa dadkii ku qaatay afkaartani asiga iyo amiirkiisa oo Cabdulwaduud la dhihi jiray halkaas waxaa ku xiray shabaabka dad la dilay iyo qayb la xiray oo ay kamid noqdeen la weeraray shabaabku weerareen amiirkiisa waa la dilay asagana waa la xiray markii in muddo uu xiray kadib uu ka soo faktay hay'adda sirdoonka iyo ciidamada amniga oo ka warhayay in xasan fanax oo magaalada soo gala gacanta ku dhiga waa la xiray 2016 markii xasan fanax gacanta dawladdu ku jiray afkaarta xagga uga soo baxan waxay ahayd inuu daacish ku biira gacanta dawladdu saas ku soo galay muddo markuu xiray kadib si aan runtii maxkamadda aan loo cadeynin ama aan la fahmi karin ayuu gacanta wax uga baxay maxaa la yiraahdaa ciidamada ama gacanta dawladdu uga baxay kadibna wuxuu sii bilaabay in afkaartiisi halkeedii ku sii wado asigoo tagay buurigi qandala iyo gobolkaasi bari oo ka naqday dagaalooge iyo horjooge ciidamada horkaca markii halkaasi ay soo anfici weysay ay xogaa ku dhiftootay waxaa loo soo wareejiyay koonfurta Soomaaliya marka qofkii ugu dambeeyay shakhsiga ugu dambeeyay oo mataqaana xogtiisa la helo oo shaqeynayay oo daacishta koonfurta mataqaana horjoogayaashooda qaybta ugu muhiimsan ahaa ayuu noqday xasan fanax oo hadda runtii ciidamada amnigu ay ku daba joogaan marka qofka ugu firfircoon hadda koonfurta waa xasan fanax daacish waa isaga horta xasan fanax qofka ugu firfircoon isaga waa su-aashu waxay tahay haddaba waa maxay istiraatiijiyada dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedyada ee ku wajahan inay ka hortagaan halista labadan urur sheekh ibraahim nadaara waxa uu talooyin u hayaa madaxda dowladda Soomaaliya sidii ay ku waajihi lahaayeen halistan waxaana uu isagu ku doodayaa inaan wax badan laga kororsan waayo aragnimadii la dagaalanka ururada xagjirka ee Soomaaliya inkastoo 10 sano haatan ay ka soo wareegtay dagaalka noocan ah ee ay ku jireen dowladihii isaga dambeeyay maamulka Soomaaliya culumtan askariga waxaa lagu yiraahdaa haddaad cadowgaaga aad taqaano oo naftaada aadan aqoonin guul kasta cadowgaada aad ka keentaay waxaa daba yaallo ama ku xiga guul darro haddii naftaadana aadan aqoonin oo yacni adiga waxaad tahay isma ogid cadowgaagana wuxuu yahay ma ogid dagaal kasta aad gashaba waad ku jabaysaa waayo naftaadood aqoonsato iyo tabartaada iyo taagtaada waxay ku baraysaa sidaad u weerar tagi lahayd cadowgaaga wuxuu yahay isu fakeray wuxuu qorsheynayo daraasiiso ogaatana waxay ka caawinaysaa sidaad isu difaaci lahayd wax kastana waxay leeyihiin albaab laga galo tusaale ahaan ciidanka ka shaqeeya xamar iyo ereyadeeda awoodda ugu badan waxaa la saaraa ciidamadan muuqda ee dareeska wata ee gaadiidka wata juhdi iyo dadaal iyo orodna ooma yara laakiin yay la diriraan waa su-aale qof aan darees ciidanna wadan dadkana aan laga aqoonin haddana meel kastana ku faafsan ciidan darees wata ma keeni karo oo qolaba qolay leedahay ciidanka muuqda ciidan muuqda la diriri karaa laakiin ciidan aan muuqanin waxaa la diriri kara ciidan kaloon muuqanin oo isaguna aan iska dhaadaynin oo iska jiraynin ciidanka keliya un baa la diriri kara waxaa kaloo jirto sida muuqatana waayuhu iyo dhacdooyinku inaan duruus badan aan laga kasbanin 10 sano muddo ku dhow ama wax ka badan ama u dhowba ya hal farsamo on maalinna aan lagu guuleysanin baad arkaysa ayadoo lagu celcelinayo hadda tii lagu guuleystaba in mar labaad lagu celiyo ama la ogolayne 10 sano iyo ka badan
lagu jabayay in maalin walba dabada la hayo la daba socdo yaan ula jeedaa markaan leeyahay dhacdooyinka iyo axdaasta inaan waayo aragnimo badan aan laga faa'iidin kolley ma garan karo meelay wax iska qaban lahayn